بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال meel walba u joogtiin iyo sulbood inoo maqlaysaan ku soo dhowaada sheekadii xiisaha badneed iyo qisooyinkii aanan kaga samaynaynay nolosha iyo aayaheeda iyo sida ay qof walbaahi u awoodo inay wax ka beddesho. maxaa hore u dhacay oodan ogeyn, haddase maxaa kula gudboon? qisadeenna maantay waxay ku saabsanaan doontaa ninkii cadhada badnaa iyo odagii mahadnaqa badnaa. waa qiso qalbi taabada, erayo qurxoon oo la yaab leh aad ka dhex baranayso iyo cashar lagama maarmaan ah. waxaa jira sheeko uusan qof walba u ekayn inuu markiiba fahmi karo, balse marka ay qalbigaaga gaarto ay ku reebayso raad aan waqti gaaban aadan ku gaari lahayn. waa sheeko ku saabsan laba ruux oo isbarbar socda noloshooda, balse mid walba uu u socdo waddo ka duwan tan kale. mid cadho la gubanaya iyo mid mahadnaq ku iftiiminaya noloshiisa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal meel walba oo joogtiin iyo si walbaad noo maqlaysiin, ku soo dhowaada qiso iyo waana t v ood xiliyadan oo kale inooga barateen inaan idiin soo baahino sheekooyinkii xiisaha badnaa iyo qisooyinkii ku saabsanaa nolosha iyo sida loo maaraynayo wixii ku dhaafay iyo waxa ka hortaagan. qisadeenna waxa ay ku saabsan tahay hadda nin cadho badnaa iyo odagii mahadnaqa badnaa. waa qiso qalbi taabada, ereyo qurxoon laga dhex arki karo iyo casharo lagama maarmaan ah. waxaa jira sheeko aan qof walba u ekayn inuu markiiba hore ka fahmi karo, balse marka ay qalbigiisa gaarto ay ku reebto raad aan waqti badan uusan gaari lahayn. waa sheeko ku saabsan laba ruux oo isbarbar socota noloshooda, balse mid walba uu ku socdo waddo ka duwan midda uu ku socdo kan kale. mid ayaa ku gudbaya cadho noloshoo idil, midna waxa uu ku moodayaa mahadnaq iyo mahadcelin cid kasta oo maalin caawisay. hameenkii roob ayaa da-ayay tuulo yar oo buur ku taalla. dadka qaar guryahooda dab ayaa ka holcayay. cirka waxaa gariiriyey daruuro madow iyo hanqar. waddooyinku waxay ahaayeen dhoobo iyo biyo isdhex milmay. guriga ugu weyn ee tuulada waxaa deganaa nin la oran jiray cabdulaahi. dadkii way oqoon jireen, balse ma jeclayn inay la kulmaan marka uu xanaaqsan yahay. cabdulaahi wuxuu ahaa nin hadal adag. wejigiisa waxaa ka muuqday cabsi, caro iyo sidoo kale qofka ugu yar ee qalad sameeya waxa uu kala kulmi jiray. carruurtiisu waxa ay ku noolaayeen si aad u adag. dadka yaqaanana maysan jirin wax ay si weyn ugu soo hirtaan. xaaskiisu mar walba waxay ahayd qof afka isku qabanaya. qalbigeeduna wuu jabay, balse aamusnaanta ayay dooratay si ay guriga qiiq cusub uusan ugu darmin. marka cabdulaahi xanaaqo, codkiisu wuxuu dhaafi jiray darbiyada. ereyadiisuna ma ahayn hadal, waxay ahaayeen fallaaro. qofkii lagu ganana wuxuu xasuusan jiray maalmo badan. mararka qaar wuxuu ku hadli jiray wuxuu dib dambe u sixi kari waayey. wuxuu u malaynayay in codkiisu sare oo cadaalad yahay, laakiin cadhadiisa ayaa ka dhigtay nin aan la jaan qaadi karin bulshada. maalin ayay dhacday dhacdo aan weligiis iloobi doonin. wiilkii yaraa ee yuusuf ayaa koobka shaaha ku riday dhulka. ma ahayn wax weyn, keliya waa khalad carruureed.
ma ahayn wax weyn, taas waxay ahayd qalad carruureed, laakiin cabdulaahi ayaa soo kacay isagoo aad u qaylinaya. waxa uu ku qaylinayay wiilka isagoo indhihiisa ay casaadeen, gacantiisuna ay hawada u taagan tahay. wiilka yar waxa uu dareemayay khalkhal xooggan oo ka soo wajahay dhinaca aabbihiis. yuusuf wuu argagaxay, indhihiisa ilmo ayaa ka buuxsantay. wuxuu hooyadii ka galay dhabarkeeda. cabdulaahi oo ku hadlayay erayo waaweyn oo aan habboonayn inay ilmaha yaru maqlaan, wuu wada aamusay. aamusnaantaas ma ahayn nabad, waxay ahayd dhaawac. habeenkii dambe oo meel yar fadhiistay isaga oo shaah qabow cabaya, xaaskiisa ayaa si tartiib ah ugu tiri, cabdulaahiyow, gurigan ma ahan guri, waa meel cabsidu ay deggan tahay. wuxuu eegay iyada isaga oo xanaaq qaba, balse markii uu indhaheeda arkay wuxuu arkay wax ka xanuun badan: cadho, daal, qof muddo dheer dulqaadatay. daalkii qofka qalbiga jabka ku riday, maantay inay ceshan weyday ayna soo gudbisay. hadalladeeda waxay ku dhaceen sida roobka qabow oo qalbiga dhexda uga dhaco. cabdulaahi sidaas ayuu ku jiiftay habeenkii, laakiin nasiib darro, subaxii dambe waxa uu soo kacay isaga oo weli qalbi culus wato. markii uu waddada tuulada marayay wuxuu arkay oday dadka oo dhan ay gaar u ah oo ay ixtiraamayaan. odagaas waxaa la odhan jiray abshir. waxa uu ahaa nin sabool ah, guri yar ayuu ku noolaa, haddana wejigiisa waxaa ka muuqda dhoolla caddayn aan la iibsan karin. dadka mar walba waxa ay maqli jireen isaga oo leh alxamdulilaah. xitaa marka uu roobku da'ayo ama iftiimayo waxa uu odhan jiray codkiisa si dheer, alxamdulilaah, taas oo dadku ay isweydiin jireen had iyo jeer leh marka ay maqlaan odaga codkiisa. cabdulaahi waxa uu ka xishooday inuu la hadlo, laakiin odagu waa uu arkay abshir ayaa ugu yeedhay cod deggan, cabdulaahi, soo dhowow. ninkii cadho badna ahaa waxa uu la yaabay sida qof walba uu uga nasiib badan yahay. marka uu odagan la kulmo waxa uu la fadhiistay isaga oo aan hadal badan keenin. odagu wuxuu kor ka dhigay koob shaah ah oo yar. cabdulaahi waxa uu yidhi, oday, anigu ma haysto sida adiga oo kale. noloshaydu waa culus tahay. dadkaygu waxaan ku hayaa cabsi. gurigayga iyo deegaankayga kuma jiro cid aniga ii soo bareeri karta. wax walba waxay ii muuqdaan inay iga hor imaanayaan. maxaa had iyo jeeraale ugu mahadnaqdaa wax walba oo adigu aad hesho? bal ifahamsii halka aad ka keentay qisadaas. abshir ayaa dhoolla caddeeyey, isagoo dhoolla caddayntiisa ma ahayn mid dusha laga saaray, balse waxa ay ka soo burqanaysay qalbiga qani ah oo xasiloon. waxa uuna si tartiiba ugu yidhi, wiilkaygiyow, dadka qaar waxa ay leeyihiin wax badan, laakiin qalbigoodu waa uu gaajaysan yahay. anigu wax badan ma haysto, laakiin anigu waxaan haystaa neef aan ku neefsanayo, indho aan wax ku arko, carruur aan jeclahay, iyo qalbi weli aan quusan. taasina waa hanti. cabdulaahi wuu aamusay. waxa uu dareemay in ereyada odagu ay ka miisaan culus yihiin.
hadalladii uu isagu dadka ku dhaawici jiray. Abshir waa uu sii raaciyay hadalkiisa, waxaanuu yidhi, cadho waa dab. Marka aad shiddo, dadka kale keliya ma gubto, adigana waa ay ku gubtaa. Mahadnaqusa waa biyo qabow, waxa ay dejisaa qalbiga, waxayna soo celisaa aragtida saxda ah. Markii Cabdullaahi gurigiisii uu ku noqday, hadalladii odaga waxay ku soo noqonayeen maskaxdiisa. Habeenkii marka uu carruurtiisa arkay isaga oo rabay inuu qayliyo, wuxuu isxasuusiyey ereyadii dab. Maalmo kadib, tuuladii waxaa ka dhacay abaar aad u weyn. Ceelashii qaar waa ay angegeen, daaqii xoolahana waa la waayey oo waa uu yaraaday. Dadkii qaar waxa ay bilaabeen inay cawdaan, qaarna way murgeen. Gurigii Cabdullaahina weli caradii hore maysan ka yaraanin. Waxa uu dareemay inay dadku waxa ay ka cabanayaan ay tahay inuu si wanaagsan u ogaado, si uu u soo dhex galo bulshadiisa. Waxa uu ka caraysnaa inaysan jirin qof isaga waxba la wadaagaysa. Marka laga hadlayo cuntada, biyaha, shaqada, carruurta iyo xitaa aamusnaanta xaaskiisa, wax walba waxay u muuqdeen caqabad. Laakiin guriga Abshir weli waxaa ka socday codka alxamdulillaah. Dadka ayaa la yaabi jiray. Abshir ayay ku yidhaahdeen, ceelka waa qalalay, roobkiina waa maqan yahay, xoolihii waa tabar daraadeen, sidee weli u odhanaysaa alxamdulillaah? Odaygii waxa uu ku jawaabay, marka nimco yaraato, mahadnaq ma yaraado. Qofka wax yar ku farxa, wax badanna qalbigiisa waa uu ka helaa, waana u farxa. Maalin ayaa Cabdullaahi go'aansaday inuu mar kale u tago Abshir, wuxuuna ku arkay isaga oo ku dhex jira carruur deriska ah oo uu wax yar oo lows ah uu u qaybinayay. Xitaa isagoo wax yar haysta, waxa uu muujinayay sida ay hanti weyn oo kale oo u haysto. Cabdullaahi ayaa si la yaab leh u daawaday arrintaas, waxaana uu yidhi, odayga, adigu maxaad u qaybinaysaa wax yar oo aad haysato? Abshir ayaa ku qoslay, waxaana uu yidhi, sababta aan u qaybinayo wax yar ee aan haysto waxa ay ii noqon doontaa wax badan. Wax yar ood haysato ood qaybisana waxaad ku heli doontaa wax badan oo aadan haysan hadda. Cabdullaahi waxa uu dareemay in ereyadaasi qalbigiisa ay ku dhacayaan, meel hore oo horay u xirantana ay garaacayaan. Wuxuu xasuustay carruurtiisa guriga iyo hooyadood, iyo sida ay mar kasta uga dhigo dadka agtiisa jooga kuwa aan khalad ka dhammaanin, uuna had iyo jeer leh si khaldan ula dhaqmi jiray. Odayga sidaa ayuu qof cadaadis badan u ahaa, una xakamay jiray xaafaddiisa. Abshir waxa uu ku jawaabay, ka hor inta aadan hadlin neefso, ka hor inta aadan canaanan maqal, ka hor inta aadan go'aamin feker. Cadho waa marti ku meel gaar ah. Haddii aad albaabka u furto, waxay degi kartaa gurigaaga oo dhan. Subaxii xigay, Yuusuf ayaa mar kale koob jebiyey. Qolka waa aamusay. Xaaskiisii waxay indhaha ku qabatay Cabdullaahi ka hor inta uusan tallaabo qaadin. Ma xanaaqin maalintaas oo lama hadlin wiilkii yaraa, waana u kaadiyey isaga oo aruuriyey jajabkii koobka. Laakiin markaa waa uu istaagay, wuu neefsaday, gacantiisa ayuu hoos u dhigay, wiilkiisa yaraa ayuu eegay, indho cabsi leh ayuu ka dareemay, waxaana wejigiisa ka muuqday diyaar u ahaanshaha canaan. Cabdullaahi
wuxuu fadhiistay halkuu ka istaagay, wuxuuna si gaaban u yidhi, yuusuf, wax fiican maadan samayn ee taxaddar badan yeelo, laakiin maantay waa hagaag. Gurigii wuxuu galay isaga oo aamusan. Gurigii wuxuu galay aamusin cusub. Xaaskiisii waxay kor u soo eegtay iyada oo aan hubin waxa dhacay. yuusuf ayaa si tartiib ah u neef baxay, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay ee gurigaas cabsida yaraato. balse isbeddel ma ahayn hal hameen oo keliya, waa safar. cabdulaahi waxa uu bilaabay inuu la fadhiisto odaga abshir marar badan, wuxuuna ka bartay mahadnaqa aan la soo koobi karin ee nolosha ku meeran. waxa uu ka bartay sida ugu fiican ee ay tahay in dadka loola dhaqmo. wuxuu ka bartay sida ugu wanaagsan ee ay tahay in xanaaqa laysaga yareeyo. maalin kale waxa uu arkay xaaskiisa oo daalan. halkii uu canaanan lahaa waxa uu yidhi, waad shaqaysay, waadna daashay, ilaahay ha kuu barakeeyo. xaaskiisu waxay indhaha ku haysay isaga oo yaaban. ereyadaas waxaa laga yaabaa inay ahaayeen kuwo yar, laakiin qalbigeeda waxa ay ku noqdeen roob. markaas ayuu cabdulaahi garwaaqsaday xaqiiqda qotada dheer. ereyada wanaagsan waxa uu dhisaa guriga, ereyga xun waxa uu dumiyaa qoyska. cadhadu waxa ay soo saartaa dhaawaca, mahadnaqa waxa uu soo saaraa nabadda. maalmo kadib dadkii tuuladu waxa ay beddeleen inay arkaan isbeddel cabdulaahi ka soo baxaya. waxa uu noqday nin hadalka ka hor fikira. waxa uu noqday aabbe carruurtiisa isjecel yihiin halkii ay ka cabsan jireen. waxa uu noqday nin marka uu guriga galo aan dab wadan, balse ka shaqeeya deganaanshaha gurigiisa. hal mar ayuu yuusuf wiilkiisa yaraa ku yidhi, aabbo, adiga hadda ma kaa cabsanayno. ereygaas waxa uu cabdulaahi kaga dhacay qalbiga si ka duwan dhammaan wixii hore loo odhan jiray. ma ahayn canaan, ma ahayn ammaan caadi ah. waxa uu ahaa caddayn nolosha isbeddeshay. waxa uu odaga abshir ugu yimid mahadnaq, wuxuuna ku yidhi, oday, adiga ayaa ii furay indhaha. waxaan ku noolaan jiray ma ahayn nolol. waxaan awoodi waayey inaan si wanaagsan u noolaado. hadda waxaan awoodaa inaan noolaado aniga oon qaylinayn. balse hadda waxaan ogaaday in awooddu ay tahay isxakamaynta. abshir waxa uu ku jawaabay, wiilkaygiiyow, qofka ugu xooggan ma ahan kan dadka jebinaya ee waa kan qalbigiisa jebiya. xilliyada dambe abaartu way yaraatay, roobkuna wuu soo laabtay. geedhihii qaar waxa ay soo saareen caleemo cusub. carruurtu waxa ay mar kale ciyaareen iyaga oo qoslaya. tuulada oo dhan waxa ay hadal haysay labada nin, mid cadhadii ay ka adkaatay iyo mid mahadnaqii uu ku adkaaday. cabdulaahi ma uusan noqon malaa'ig hal hameen, laakiin waxa uu bartay cashar ku filan. abshir ayaa waxa uu waday inuu yidhaahdo alxamdulilaah. xitaa maalinta uu jiran yahay wuxuu odhan jiray alxamdulilaah. xitaa maalinta rootiga yaryar uu waayo wuxuu odhan jiray alxamdulilaah. xitaa maalinta uu keligiis yahay wuxuu odhan jiray alxamdulilaah. maxaa yeelay qalbiga mahadnaqa leh dhib ma tirtiro iftiinkiisa. qaybihii dambe ee sheekadeenna ayaan soo gaarnay, ama qisadeenne. waanada qalbi taabadka aan ku dhaafayna waxay tahay, cadho xakamayn la-aan ihi
waa dab gubaya qof walba oo u dhow, adigana kuu horseedaya inaad noqoto qof aan mahadnaq lahayn. Mahadnaqu waa iftiin qalbiga dejinaya, nolosha qurxinaya, oo rajo ka dhigaya meel ay quusato ama dadku ka quusteenna kuu muujinaya inaan weli laga quusan. Qofka xukuma cadhadiisa waa geesi, qofka mahadnaqa ku noolaadana waa hodan, xitaa haddii uu sabool u muuqdo. Haddii aad rabto, waxaad sheekadan iyo kuwo kaleba aan kugu soo baahin doonaa YouTube-keena qiso iyo waano. Fadlan subscribe, like iyo share na sii. Waad mahadsantahay daawade.